السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي الغالية soo dhawaada waxaan samaysan doonaa biisada quruxda badan leh si uu sameeyay ku soo dhawaada ugu horeyn eeshkan soo qooshanay biisa kale oo soo sameeyay channelka way ku jirtaa hadaan hore u daawan iminka hore u gal insaan soo qooshanay soo daawo laakiin waxaan la shaqeynaa sidaan khudradda aan ugu dul sameynayo aan ugu dul sharaxayo sidaan u sameynaa insha Allah eeshka qoositaankiisa aad buu u dhib yar tahay marka channelka hore u gal biisaan sameeyay oo kale way ku jirtaa ugu horeyn waxaan ku soo dul daray sad aragtaanba wax weeyaan ketchup afar muqaacad oo ketchup ah ayaan dusha kaga soo daray kadibna waan isku wada gargaarsiinaya waa inaad si fiican isku wada gargaarsiisaa maasha Allah waxay nooga soo bixi doontaa biisa aad iyo aad u jilicsan oo maasha Allah ayaa nooga soo bixi doontaa marka biisada aad ka dalbato maqaaxiyaha iyo hodheelada waxa kaaga fiican taad guriga ku samaysato oo aad hubto waxaad ku darteen aad garanayso ayaa fiican inaad samaysato kadib saad jeceshahay aad u samaysanaysaa khudradda waad ku basanaysaa wax kasta waad ku basanaysaa iyagoo doonay kaaga yareynaya wax walba ugu horeyn saasaan u soo mariyay ketchupkii marka waxaan ku soo darayaa imika kalluun baan ku darsan doonaa haddaad hilibka jeceshahayna waad ku darsan kartaa iyo digaagaba adiga ku jirtaa dooqaaga ayaad ku darsanaysaa ugu horeyn waxaan kalluun saafi ah oo bilaa laf ah ayaan soo qaatay oo yareeyay oo soo shiilay kadibna saasaan ugu daadinayaa dhammaanteed saasaan ugu wada dulshubayaa dhammaan saasaan ugu soo dulshubay maxaan ku raadayay kalluunkii kadib waxaan ku soo daray imika basal cad weeyaan basasha cadna aad buu u fiican tahay marka basasha cadna saasaan ugu daray kama badinayo ciyaalka aad iyo aad u nacay marka in yar oo inay ka fahmin baan ku daray kadib waxaan ku soo daray barbarooni sad aragtaanba maasha Allah tamaandhada jeceshayna waad ku darsan kartaa haddii kalena ketchupkaas tamaandhahan kugu filan waad ka diisan kartaa dadka qaar baa tamaandho qaar cad kaga dara markii dambe waxaan ku soo daray cheese weeyaan cheeseka kuma badinayo oo cheeseka badan ma jecli marka in yar oo qiyaas ahaan ayaan ku soo darsaday haddaad cheeseka aad u jeceshayna waad ka dul buuxsan kartaa maasha Allah saasaan ugu soo dhameystiray waxaan gelin doonaa ovenka ayaan u shiday oo imika baylayaan soo shitay 180 hoose iyo 40 sare baan u geystay ilaa iyo maxaan ku dhahday waxay noogu jiri doontaa 15 daqiiqo wax ka yar ayay noogu jiri doontaa maasha Allah saasaan ku soo dhameystiray khudrad badan kaaga baahna in yar oo simple oo kajada aanad ka waayay ayaad ku darsanaysaa markaas ay noogu soo baxday isku soo noqon insha Allah maasha Allah asxaabta qaaliga saasay noogu soo baxday biisadeeni markaan soo dhameystiranay waa biisa aad iyo aad u jilicsan waan soo googooyay sad aragtaanba maasha Allah aad iyo aad ayay noogu soo bislaatay si fiican bay noogu soo bislaatay ugu horeyn saasaan u soo googooyay xabada kaliya taa kugu filan markaad guriga ku samaysato maasha Allah waxaan idin leeyahay inaad ka wada faa'iido doontaan baan rajaynayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay ka faa'iidayso waan asxaabta qaaliga waxaan u soo diyaarsanayaa ketchup iyo mayonnaise yar aan ku cuno marka saasaan si xidid ugu soo diyaarsaday kadib mayonnaise-ka ketchupkaas isku dhuuqaysaa maasha Allah koob shaah bigasan markaan dhiganaysaa dhag ashadu ku dhantahay waxaan leeyahay ka faa'iidayso waan asxaabta qaaliga dhammaantiin muuqaalka si share gareeya si asxaab badan hablo badan ay uga faa'iideen iyo inaba intii cunto samaysataba dhammaan waxaan leeyahay comment like tay saara muuqaalka si share gareeya wixii fariin ah iyo tala iyo tusaalabana commentiga insha Allah igu reeba dhammaantiin waxaan leeyahay ka faa'iidayso waan maasha Allah aad iyo aad u jilicsan tahay aad bay u macaan badan tahay aad bay waxaan ku caraftii lagama sheekeyn karo dhammaantiin waxaan idinka tagay khayr badan intaan muuqaalka xiga aan iska iman doono waxaan idin leeyahay sida iyo kulanti dambe xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh